iyadoo maanta ay ku beegan tahay 30 guurada 18 May ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dabaaldagayo markii ay Soomaaliland madax bannaanideeda dib ula soo noqotay ayaa waxa si wada jira dhabaal hambaliya oo ku aadan munaasabadda 18 May u diray shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland wakiilka Soomaaliland ee dalka Jarmalka Mustafa Yuusuf Ismaaciil iyo gudoomiyaha xisbiga UCD ee gobolka Baden-Württemberg ee dalkani Jarmalka Maxamed Deeq Ciise Maxamed Casi iyaguna digniin u diray cid kasta oo cadow ku ah qadiyadda iyo qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliland halkan uga diraya salaan kalgacal iyo qiimo badan madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisa dhammaanna waan soo salaamayaa waxaan doonayaa halkan in yar ka yiraahdo safiirka Soomaaliland waxa uu ku tala jiro inuu qabto anigoo safiira waxaan doonayaa inaan dhammaan idin ogeysiiyo in Soomaaliland inkastoo aan la ictiraafsanayn ay safiir ahaan cilaaqaadka iyo xiriirka aan la leeyahay dawladda iyo hay'adaha aan dawliga ahayn ee Jarmalku iyo baarlamaanka uu aad u fiican yahay muddada dheer soo jiray ee qotada dheer aanu ka faa'iideysanaya inaan Soomaaliland diblomaasi ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan aan uga faa'iideeyo jaaliyadana waxaan doonayaa oo ugu talagalay insha Allah markuu cudurka naga baxo inaan dhammaantood aan ku casuumadeeyo shir ballaaran oo ay ku soo doortaan urur umbrella ah ama caam ah oo dhammaantood ay matala horta waxaan ugu bushaareynaya ummadda reer Soomaaliland ee Ilaahay nabadqab iyo caafimaad ku gaarsiiyay maalinta Jamhuuriyadda Soomaaliland waastaysan ee ay May loo yaqaano waxaan leeyahay sanadkiisa Ilaahay khayr iyo bashbash iyo barwaaqo ku gaarsiiyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan idin la wadaago dareenkayga ah xusno maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee May intaasi waa dareenkayga iyo muxuu ahaa shucuurtayda idin la wadaagayo maalinta May inta marka laga yimaado waxaan doonayaa inaan dhalinyarada reer Soomaaliland faro ama u sheego inay ku soo dhaweeyeen golihii deegaanka iyo golihii baarlamaanka inay doortaan muxuu ahaa dad u carbisan oo dhalinyaro ah oo aqoon u leh inay qabtaan shaqooyinka loo igmaday iyagoo ka gudbaya waxyaabihii hore ee la soo dhaafay ayaan ku dardaari lahaa inay shacabku doortaan maanta codkaaga ayuu fartaada ku jira si wadooyin wanaagsan aad u hesho iyo maamul sharci dejin oo baarlamaan aad u hesho waxa ku qurux badan inaad si qurux badan oo qof aqoon leh aad dooratid intaasaan taa ka leeyahay waxaan kaloon doonayaa inay qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland adkaystaan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa leeyahay muxuu ahaa waa geesinimadu waa adigoo cagaha dhulkan yar ku haya 100 sano iyo 200 baynu sugaynaa lama cadibi karayo dad masaakiinana Soomaaliland lama cadibi karayo golaynu ku dheelaynaa beesha caalamku garsoor ka tahay guuleystayaashu waa markasta waa guuleysta dadka gobonimada leh ee sharafta leh ayaa guuleysta gacbiga Soomaaliland waxaan leeyahay markasta qadiyadiina ilaashada oo ha ka tanaasulina markasta inaad isku duubnaataan Soomaaliland ina qadiyadeeda iyo ilaalisaan muxuu ahaa sharafteeda qof kasta waa ku waajib beesha caalamku weydin ogsoon tahay waa yalla mudakar MMTV Jarmalka